isuduwihii wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ee Somaliland Dr. Aadan Caseer ayaa isagoo saxaafadda la hadlayay waxa uu cadeeyay inuu iska casilay xilkii uu hayay. Isuduwaha ayaa ku sameeyay iscasilaadiisa xaaladda COVID-19 ee Burco oo sii xumaanaysa isla markaana aanu qaadi karin mas'uuliyadda dadka xanuunsanaya iyo kuwa u dhimanaya. waxaan iska casilay xilkii aan u hayay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer. runtii waxa keentay inaan iska casilo in mar haddaan ahay isuduwaha caafimaadka ee gobolka Togdheer wax allaale ama qof kasta oo xanuunsanaya ama qof kasta oo dhintay waxa mas'uuliyaddeeda waxay saaran tahay waaniga. marka haddii mas'uuliyadaasu ay noqoto mas'uuliyad ay noqoto aan ilaahay raali gelinayn oo aniga laftayda damiir ahaanna aanay raali gelinayn, waxaan jeclaaday inaan xilkaa aan iska casilo. waxyaalo badan ayaana keentay. runtii COVID-19 waynu ognahay waa xanuun emergency ah, yacni gobolka oo dhan iyo waddanka oo dhan runtii waa inuu ku jiraa xaalad emergency ah oo degdeg ah oo la xidho goobihii laiskugu imanayay oo dhan iyo jaamacadihii, waxbarashadii, meelaha xafladihii, meelahan maaragtay kaadharhka laga qaato. adigu waxa weeye in waddanka uu galo xaalad emergency ah. mar haddii aan xaaladda emergency ahi aanay waddanka ka muuqan, waxaan jeclaaday in wax badan ay qabyo iga tahay inaan caafimaadka gobolka kor u qaado. karantiinka gobolka waa xarun weyn runtii, laakiin waxaanay ahayn xarun la odhan karo xaruntaas waa xaruntii karantiinka cudurka ama xanuunka COVID-19. waayo sidaynu ognahay, mar haddaynu nahno waa karantiin, waa in aanu qof keliya aanu soo gelin meesha. hadda qofna aan loo ogolaan inuu soo gelin, aanu ka bixin, oo mar kasta karantiinku isolation centerku ama karantiinku uu noqdo meel xarumaha kale ka duwan oo dadkan maaragtay oxygeenta u baahan iyo dadkan naqasku qabanayo oo keliya inay xarunta jiifaan oo aan cid kale loo ogolaan inay soo galaan si aanay xanuunkii u fidin.